ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku sii qulqulaya jiida dagaalka ee Tukaraq kadib markii ay ciidamadu ka soo kici timeen fariisimada ciidamada qaranka ee deegaano kamida gobolka Sool iyo Sanaag oo haatan si rasmi ah u guda galay jiidaha dagaalka si ay dhirbaaxo laxad leh ugu dhuftaan ciidamada cadowga ee isgarabsanaya ee iyagu ka soo duulay amaba isaga yimi maamulada kala duwan ee wadankaasi Soomaaliya. Dagaalkan oo dagaalkii ugu cuslaa ee dhexmara ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidamada maleeshiyaadka maamuladaasi Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in haatan dib loo riixay isla markaasina dhirbaaxo laxad leh ay kala kulmeen ciidamada difaaca qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland.